السلام عليكم. عجائبتا تضبطها هي الدونكا وحبذا أيان مقلني عجائبتا تضبطها هي عالمك لكن محيهين ما أنت وحنوغها لنا مقال كان عجائبتا تضبطها هي وحيهين وحا حسد مضن إن تضبطي بشي تضبط لبضا كوني تضبطي لو عديي دورشاد عجائب عصب سيدا دربي وين شينها بترا أردن laakiin halkan waxaan ku soo gudbinaynaa toddobadii cajaa'ib ee hore laguna magacaabo kuwa asalka ah cajaa'ibta asalka waana cajaa'ibtii caalamkii hore ee muddadaas aadka u dheer la isku raacay inay yihiin cajaa'ibta toddobada ee asalka caalamka haddaan soo qaadanno cajaa'ibtan toddobada kan ugu horeeyo haramka weyn ee Giza Masar ahraamaadka saddexda kan ugu weyn waxaana la dhisay 4500 sano ka hor وانا دسمو الى هذا الاسويديو sida uu bini aadamku u dhisay buurta intaas laag arrinku wuxuu gaaray in ay soo baxaan aragtiya leh waxaa dhisay noolayaal hawada fog ka imaaday oo aad arkayso sawirro dadku ay sawiranayaan sida loo dhisay dabcan waa la yaabid kaliya sida loo dhisay ee ma dhisin wax ka imaaday hawada sare bini aadam ayaa dhisay dhisidiisa waxay socotay muddo 20 sano ah ayaa la dhisayay shaqaalihii dhisay qiyaasaadka ugu yar waxay gaarsiinayaan 10,000 oo nin in ay ahaayeen qiyaasaadka ugu badanna 100,000 oo nin in ay ahaayeen aan dhahnaba 10,000 oo nin hawl ay ku jireen muddo 20 sano 10,000 oo nin dhisma ay dhisayeen 20 sano faraacinadii hore ee Masar boqorada iyo qoysaska wax xukuma waxay u dhisi jireen qabuuro waaweyn oo ah guryo dhulka hoostiisa laga qoday lalana gelinayo meydka dhammaan wixii uu lahaa hanti waliba kuwa ugu muhiimsan oo aad arkaysa maanta markii la helo qabuurihii faraacinadii hore in qabrigu uu yahay kanzi la helay dahabka waxyaabo aad qaali u ah inay qabuuraha ku jiraan dhererka haramku wuxuu gaarayaa 148 mitir taasoo haramka Khofo waa haramkan weyn ka dhigtay muddo 3800 sano ah dhismaha ugu dheer ee bini aadam dhisay waa rikoor aan la jabinin muddo 3800 sano ah culayskiisa wuxuu gaarayaa 5.9 milyan oo tan wuxuu ka kooban yahay 23 milyan oo dhagaxyo kiiba culayskiisu gaarayo 30 ilaa 50,000 oo kilogram oo halkii dhagax culayskiis weyninkaas iyo qaabka cajiibka loo dhisay ayaa ka dhigay mid ka mid ah cajaa'ibta dhismayaasha u dhisay bani aadamka kuwa ugu yaabka badan deegaanka Giza daafaha Qaahira ayuu ku yaalaa haramkan waxaana ku wehliyo labada haram ee kale Khafra iyo Manqara haddaan soo qaadanno cajaa'ibta labaad ee kale beerihii Baabil ee laalna mid ka mid ah cajaa'ibta adduunka ee sida cajiibka loo dhisay dhulka labada webi ee Ciraaq waxaa ka istaagay xadaarado kala duwan Aashuuriyiintii iyo Baabiliyiintii waxaa dabiici ah in waxyaabo cajiib ah lagu arko dhulkaas ay xadaaradaha kala duwan soo mareen magaalada Baabil waa xilligii boqorkii Baabil Nabuukhadnezzar waxaa laga dhisay mid ka mid ah beeraha ugu cajiibsan geedo iyo dhir kala duwan oo laga dhisay dusha dhismayaasha qasriga loona sameeyay nidaam waraabin cajiib ah aalada biyaha halkaas gaarsiinayo markii loo fiiriyo waqtigaas wuxuu ahaa arrin cajiib ah inay arrinkaas sameeyaan waxaa la sheegaa in qisada dhisida beeraha Baabil ee laalan ay imaaday kadib markuu Nabuukhadnezzar boqorkii Baabil xaaskiisa uu aad u jeclaa ay u xiistay dhulkii doogga ahaa inta una guursanin waxay ka imaaday ayaa la sheegaa Bershiya ama Farisiyad ayay ahayd Baabil ma ahan meesha ay ku taalay dhul barwaaqo ah in saxarahaas laga dhiso beerahaas laalan systemkaas lagu waraabinayana loo sameeyo waxay ahayd arrin cajiib ah haddaan ugu dubno cajaa'ibta saddexaad ee caalamka taalada Zeus mid ka mid ah aalihadii Giriigga ee hore marka leenahay ilaah Zeus waa in ayagu u yaqaaneen ilaah roobka gugaca ilaahyada oo dhan ay u yaqaaneen xadaarad walba oo wathani ah waxay sheegataa ilaahyo kala duwan masaaridii hore Giriigii Baabiliyiintii Aashuuriyiintii waxay lahaayeen kumanaan aaliha ay caabudi jireen caabudida iyo qisada jiritaanka ilaahyo ay samaysteen waa mid xitaa quraanka looga hadlay sida in dadkii ku dhaqnaa dhulka Baclabak ee Lubnaan maanta ay caabudeen ilaah lagu magacaabo Bacal kadibna nabi Ilyas uu ku yiri
atadcuuna baclan watadaruuna axsana alkhaaliqiin waxaadna ka tegaysaan allah ugu wanaagsan kuwa wax abuura sidoo kale sida ay mushrikiintii carabta u dhaheen rasuulka markuu ugu baaqay hal ilaah in ay caabudaan ajcala alaalihata ilaahan waaxidan ina hada la shay-un cujaab waxaan ula jeednaa fikradda ah jiritaanka aaliha kala duwan oo ay caabudi jireen aqwaamtii hore wuxuu ahaa mid ka mid ah haddaan qisadeenna u soo laabanno hogaamiyaashii gariigga hore kan ugu xoogganaa heer ay u bixiyeen inuu yahay ilaaha ilaahyada oo dhan adduunkana gacanta ku hayo waana saldhigga miitholojiyadii hore ee gariigga asaatiirtii hore ee gariigga saldhigga ay ku taagan tahay markuu geeriyooday si ay u xusaan ayay u dhiseen taalo dherarkeedu yahay 13 mitir taariikhdu markay ahayd 438 miilaadiga ka hor jirka dhismaha taalada waxaa laga dhisay faanta maroodiga dharka uu xiran yahayna dahab saafi ah taalada waxaa laga dhisay magaalada Olombiya ee Gariiga oo ah meesha uu ka imaaday magaca ciyaaraha Olombikada 770 sano ka hor miilaadiga ayaa markii ugu horeysay la qabtay ciyaaraha Olombikada 4 sanaba mar ayaa la qaban jiray waana mid maanta wali jirto kana imaaday fikradda koobka adduunka in 4 sanaba mar la qabto haddaan u sii gudubno cajaa'ibta afraad macbadka artamis 550 sano ka hor miilaadiga ayaa laga dhisay magaalada Afsos ee ku taala juqraafi ahaan maanta dalka Turkiga waa mid ka mid ah macaabidii Roomaanka ee hore laakiin maanta waxaa ka dambeeya hal tiir kaliya qaabka loo dhisay iyo waxa uu ka dhisnaa macbadka oo ah rukham cajiib ah ayaa ka dhigay mid ka mid ah cajaa'ibta adduunka wuxuu macbadku la kulmay duulaanna keenay in la burburiyo ugu yaraan 2 mar haddaan u sii gudubno cajaa'ibta shanaad haykalka Musalos boqorkii Gariiga ee hore Musalos 337 miilaadiga ka hor wuxuu caasimad ka dhigtay magaalada Helikranos waa magaalo maanta dhacdo galbeedka Anadol Turkiga wuxuu ahaa boqor faanka iyo nolosha tarafka jecel waana arrinka keenay in asagoo nool uu dhisto qabri aad u weyn si uu uga duwanaado dadka kale waa dhismo isla markiiba loo aqoonsaday in uu yahay mid ka mid ah cajaa'ibta adduunka ee 7 ah laakiin dhinaca kale waa dhisidiisa baarayaal ayaa leh asaga ma dhisin ee waxaa dhisay xaaskiisii Artemistii labaad waxay u dhistay markuu geeriyooday waxaa la qiyaasayaa dhererkiisa in uu gaaray 140 mitir wax ka badan waliba wuxuu ka koobnaa 3 dabaq kan hoose uu yahay hool weyn oo ay ku wareegsan yihiin libaaxyo dhagaxyo laga qoray taalada Rhodos agagaarka Gariiga waxaa ku yaala jasiirad lagu magacaabo jasiiradda Rhodos lagana dhisay mid ka mid ah taalooyinka ugu dhaadheer dhulkii uu ka talin jiray Alexanderkii weynaa kadib geeridiisa wuxuu isu bedelay dawlado badan oo isdagaalsan jasiiraddan waxay ka mid ahayd dhulkii uu xukumi jiray Alexanderkaas laakiin dadka jasiiradda Rhodos waxay doorteen in ay madax bannaanaadaan dhinacyada isayo ayna midna raacin laakiin arrinkan kama celinin in ay la kulmaan duulaan taariikhda gelin doono mid ka mid ah dawladihii ishayay ayaa ku soo qaaday duulaan ay ka qayb galeen 1,000 doomood oo 150 ka mid ay wadeen saad iyo aaladaha wax lagu go'doomiyo jasiiraddu waxay gashay go'doomin sanad qaadatay waxaa la filayay markii la fiiriyo ciidanka soo weeraray inta uu yahay in si sahlan loo qabsan doono laakiin waxay jasiiraddu muujisay iska caabin in la arko dhiftay ciidankii duulaanka kadib sanad ayuu iska laabtay asagoon wax natiijo ah xaqiijinin haddaba guusha si ay taariikhda u gasho ayay dhiseen taallo aad u weyn afaafka jasiiradda qof lugaha kala hayo doomahuna dhex mari karaan korna u taagan 33 mitir 12 sano ayuu dhismaha taaladu socday 282 miilaadi ayaana la dhameeyay dhismaha taalada cajaa'ibta 7 manaaradii Alexandria Masar fanaarka Alexandria Masar 270 miilaadiga ka hor ilaa 1323 miilaadi ayay taagnayd daafaha magaalada Alexandria ee Masar waqtigaas aad ku dheer ayay daafaha magaalada Alexandria si haybad leh uga taagnayd joog gaarayo 120 mitir laguna daray cajaa'ibta adduunka ee hore waxaa lagu tiriyaa manaaradii ugu horeysay caalamka laga dhiso waxaana la dhisay xilligii Baltimoskii labaad
ee Masar xukumayay laakiin 1323 magaalada Alexandria waxaa ku dhuftay dhul gariir waa xilligii dawladdii mamaaligta gaar ahaan xilligii An-Nasir bin Qalawun dhul gariirkaas oo dhulka la simay manaaradda iyo qaybo badan oo magaalada ka mid ah si dhab ah looma yaqaan hawsha dhabta ee loo dhisay manaaradda laakiin baaritaanadu waxay leeyihiin waxa ku xirnaa muraayad aad u weyn oo lagu arki karo doomaha soo socdo masaafo aad u fog masaafo isha caadiga ayna arki karin sida uu qoray ibnu Jubayr oo ah dhul mareen wuxuu leeyahay iftiinka manaaradda waxaa laga arki jiray 70 mayl masaafo u jirto mawduucani maanta aan uga hadalnay cajaa'ibtii adduunka 7 ahaa intaan ay ku egyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh